tartanka kubadda cagta ee dugsiyada caalamiga alkhayr ayaa laga furay garoonka Future. Tartankan oo ay ka qayb galayaan 20 fasal in ku dhow 480 ciyaartoy. Tartankan waxaa goobjoog ka ah furitaankiisii gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Somaliland Mudane Khadar Jilaal Jaamac. Sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa maamulka guud ee dugsiyada caalamiga alkhayr. Ugu horreyn waxaa hadalka ku furay iyo ujeedada loo qabtay tartankan maamulka guud ee dugsiyada caalami. maanta garoonkan Future Stadium waxaanu ka bilaabaynaa tartan kubadda cagta ah oo isugu yimaadeen 20 kooxood. 4 kooxood oo ka socda caalami Premier 1, 4 kooxood oo ka socda caalami Premier 2, 4 kooxood oo ka socda Al-Khayr Primary School iyo 8 kooxood oo ka socda caalami Secondary School. dugsiyadaas oo walaalo ah ama mataana ah oo la isku raaco caalamul khayr ayaa tartankani ardaydiisa ay u qabanayaan. waxa tartankani ka kooban yahay 4 koob. 4 kooxood oo u tartamaya caalami Premier 1, 4 kooxood oo u tartamaya caalami Premier 2, 4 kooxood oo u tartamaya Al-Khayr Primary School iyo 8 kooxood oo u tartamaya caalami Secondary School. afartaasi waa 4 koob kala duwan. koox iskuul walbana gaarkiisa ayuu tartamaya, koobkiisa ay u kala qaadayaan. tartankan waxaan ugu talagalnay inaan ardayda ku dhiiri gelino, waayo tartamada kubadda cagtu marka bahda waxbarashada lagu jiro waa waxyaalaha la yiraahdo waa extracurricular. extracurricular waxa loo jeedaa waxyaalaha manhajka waxbarashada intay ka baxsan yihiin haddana la xidhiidha. bariga hore waxay ahaan jirtay wasaaradda waxbarashada dhalinyarada iyo ciyaaraha. imika maanta waa la kala qaybiyay, laakiin si uun bay haddana xidhiidh u leeyihiin. tartankan waxaan uga jeednaa inaan ardayda yaryar ku dhiiri gelino, waayo sportsku ama jimicsigu ilmaha yar maskaxdiisa u dhisaa, jirkiisa u dhisaa. waxa kale ka faa'iidaan inay isdhaxgal fara badan sameeyaan, waxa kale ka faa'iidaan inaanay daraagiska iyo waxyaalaha balwadaha xunxun baran. marka anagu waxaan ugu talagalnay tartankan inaan jaysado wanaagsan insha Allah ku bixino. waxaan ku darayaa oo kaliya waa bahadnaq kulli kooxaha halkan isugu yimid saa uu sheegay muxuu ahaayay maamulaha guud waa 20 kooxood. khayr baan u rajaynayaa iyo guul. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gudoomiye Khadar iyo maamulka caalami iyo muxuu ahaayay maamulka guud ee Al-Khayr intuba way ku mahadsan yihiin, macnaha sida dhiirigelinta leh ee muxuu ahaayay ay u sameeyeen daayirta ay u sameeyeen. kolley kubadda waa jimicsiyaday ka mid tahay, waxay ka mid tahay dhiirigelinta ardayda, waxay ka mid tahay muxuu ahaayay waxyaabahay aadka motivationka u hayaan carruurtii ay xiisaha badan u hayaan. waxaan leeyahay hambalyo inta soo abaabushay koobkan ama koobabkan inta soo abaabushay waan u hambalyeynayaa. bacda salaan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada caalami Al-Khayr iyo xiriirka kubadda cagta Somaliland, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Somaliland Khadar Jilaal oo isaguna runtii si qurux badan noogala soo qayb galay tartankan sida maamulaha guud sheegay. waxa loo qabtay iskuulada magacooda guud la isku raaco caalamul khayr waa 3 iskuul: caalami Primary 1, caalami Primary 2 iyo caalami Secondary School iyo Al-Khayr oo isaguna dugsiga afraad noqonaya. marka runtii tartankani waa tartano hore u jiri jiray iskuuladu maaha tartankii hore ay qabtaan maanta. horey u qaban jiray tartamada, laakiin intii xanuunadii corona ay jireen ayaa runtii tartanadu naga dhex galay, gaab naga soo dhex galay annagoo markaa dee xanuunka corona dee Soomaaliland ay la tacaalaysaa anagu la tacaalayna. marka tartanadu hore u socon jireen, kuwii hore u socon jiray maantana dib u bilownay insha Allah tacaala sidaasana u socon doonaan haddii Ilaahay nafta daayo. marka ardayda ciyaaraysana waxaan ku dhiiri gelinaynaa in si qurux badan kubadda ay wada ciyaaraan, is-ixtiraamaan. waxa weeye kubaddu waxa weeye waxa la yiraahdaa waa barcad iyo barmadow, labada marna waad guulaysanaysaa marna waa laga guulaysanaya. haddii aad guulaysatana de guushaada leh, haddii laga guulaysana walaalka baa ka guulaystay, waa inaad u hambaliyaysaa. waxa kaliya kubadda imaka ardayda aan isugu keenay waxa weeye si ay isu bartaan ardaydii, isu dhex galaan oo ay uga qayb qaadato isdhexgalka bulshada. marka hadalka dheerayn maayo, maamulaha guud baa hadalka dhameeyay ee dugsiyada Cabdiraxmaan Said Axmed baa dhameeyay. aad baan ugu faraxsanahay runtii tartankan kubadda cagta ee loo qabtay 20 kooxood ee dugsiyada caalami iyo Al-Khayr ka socda. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. tartankan kii koowaad ma aha ee horena runtii waa loo qaban jiray. sida uu Jaac sheegana runtii waxa hakadka yara geliyay uun xilliga corona ayaa hakadka yara galay, laakiin wuxuu ahaa wareeg ama wuxuu ahaa waxa barnaamij runtii soo xiriir oo in badan socday runtii ahaa. marka runtii ka iskuul ahaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa
maalimaha ardaydu fasaxa yihiin ee khamiisaha iyo jimcaha ee aan waxba baran ayaa tartanada runtii loo sameeyaa tartanada runtii faa'iido badan bay leeyihiin ardaydu runtii way isdhex galaan jimicsiyay sameeyaan marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u fiican oo runtii aan soo dhaweynayno oo aan rajaynayno insha Allah dugsiyada kalena inay runtii naga daydaan oo sano kale ardayda runtii tartanada loogu qabto wax weyn kubadda cagta halkii ardayda markasta wax loogu dhigi lahaa ay jimicsiyada noocan oo kale helaan marka runtii mar labaad iyo saddexaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Khaalid Jilaal oo runtii nin waaya araga oo wax weeye ciyaaraha in badan ku soo dhex jiray oo runtii saakan kala soo qayb galay isagana aad baan ugu mahadcelinayaa bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa sayidina nabiyina maxamed alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh ilaahay baan mahadnaqaynaa iskuulka keenay subax hore goor hore oo khamiisa 7 bisha koobaad alxamdulilah baan leenahay mar walba ilaahay baan mahadnaqaynaa waxaan aad iyo aad ugu sii mahadnaqayaa maamulayaasha guud ee dugsiyada alkhayr iyo caalami oo labaduba laba nin oo dhalinyaro ah oo limanaan cabdi seed raggii aan siidhiga waxayn jiray ah xilligaan siidhiga hayn jiray iyo maamulaha oo isna ahaa dhalinyaradii ku aabatay garoonka Hargeysa Stadium labada maamulaba aad baan u salaamaya soo dhaweynayaa waxa fiican ay qabteen ka xidhiir ahaan annaga waxaa nagu waajiba inaanu mar walba dhiiri gelinno meel kasta oo kubadda cagta ay ka socoto ama meel kasta oo dhalinyaradu kubadda cagtu isugu timaado tanoo kalena waxa weeyaan waa wax ka sii qurux badan 480 tiro ku dhow oo dhalinyaro ah oo nooc walba isugu jira ilaa ay 20 ilaa 16 waa qurux weeyaan oo intaasoo saa loo soo qurxiyey 20 kooxood ee kala duwan labada iskuul ee caalami iyo alkhayr ka xidhiir ahaan waan soo dhaweynaynaa waana dhiiri gelinaynaa waana garab istaagaynaa mar walba intaa tartanku socdana wixii ay nooga baahdaan hadday tahay shuruuc iyo hadday tahay nidaam kaleba waa la garab taagannahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay hawsha noocan oo kaliya in ciyaaraha la dhiiri geliyo in ciyaaraha waxbarasho ahaan iyaga laftooda caqliga fayoobi wuxuu ku jiraa jirka fayow markaa waxay ka dhigan tahay kubaddii iyo waxbarashada inaanay kala maarmayn